bal waxaad nooga warantaa waxa aad ka doontay cashada xasan sheekh maxamuud laba xafladood aan leenahay taayadooda isku dhawaa waxa marmar dhacda madaxda Soomaalidu marka ay inta badan iyagoo Dubai ka yimaada Soomaaliya Somaliland in lagu handado oo qaar ay xarig ku mutaystaan marka arinta hadii madax Ethiopian iyo dhulkiina maraan u malayn maayo inay dhibaatada mudan lahaayeen waxa weeye nin Kristaan oo kale diintiisa fadhiyo ma ogaan saadimka nin Kristaan diin fadhiyo mabdii Soomaaliyeed buu fadhiyaa waddanka naga waalaya tamaka waan qabanaba way dadku waxay arkaan madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyaha xisbiga wadani intuna waa beel qura halkii arintu ka qoran waxa weeye naga gareeray waxa weeye oo marka Washington la tagay siyaasadahan waxaad aaminsantahay inay Somaliland go'do ninka reer Somaliland ee halka aad ku dhalatay kugula dhashay laakiin siyaasadiisu aaminsantahay inaan Soomaaliya la kala goyn maxaad cadaawad ugu qaadaan Somaliland looga eriyaa wadambiili okay ku waxaad ka warantaa tusaalahan khaatumo oo kale ama maakhir ama waxa jira group iyaguna la magac baxay Awdal State kuwa maxaad ka waran lahayd iyaga horta mashkiladu waxa weeye adigu ma ogashaa xisbigaaga in nin dhulbahantaa maanta uu istaago sida aad uga doonaysaan Soomaaliya inay idinku xushmayso fikirkiina inaad ka go'daan maxaad ugu xushmayn laadihiin khaatumo iyo maxaan yiraahdaa maakhir iyo Awdal fikirkooda iyaguna inay Somalilandnimada ka baxaan Faysal hadda koor waxa jirtay inaad tiri qofkii Soomaaliya magaceeda laga maqlo carabka hal la jaro aan kula kaftamay maanta aad madaxweynaheedii la fariistay xagga lagu jaraa